dumarku sifaad bay leeyihiin raggu aanay lahayn ama sifaad baynu leenahay aynu ku kala badannahay kow dumarku way inaga arag fiican yihiin ma u fiirsateen weli dumar way ka arag fiican yihiin inaga arag fiican yihiin ninku sheekh maxamuud ma soo taagay waxa leeyahay salaamu calaykum sheekh maxamuud ii waran nabada haddii aad weydiisid anuu nuuso saace la sheekaysanaya war sheekh maxamuud wuxuu xidhnaa bal ii sheeg waxaan ku odhanaya demoji warta muu qaawanayn baan hubataa wax kale uu xidhnaa ma garanayo gabadhu less than 0.3 fraction of a second ayay from head to toe intaba x-ray bay marinaysaa u fiirsada degdega yani xitaa 1 second maaha nera whole second maaha sidaasay qac koonsa dhalinyarada Soomaaliyeed habluhu markay idin ag maraan habluha inanku u fiirso inanku hadduu arko gabadhu ka jecel yahay ishu la sii raacaya ilaa intay bas korayso ishu ku sii haya ayadoo laakiin saakada ka soconaysa way xafiday mijaha yaraa way aragtay waxaad xidhnay way xafiday way socotay maaha yani waxay ayadu ka yeelaysa ma waa qudrad ilaahay siiyay ninku si walba ha ku dadaalo ma kari karo ayagoo markaa dumarku ilaahay subxaanahu wa tacaala vision buu siiyey cajiiba ta labaad dumarku maqalkoodu waa cajiib ragga waxay dheer yihiin from 10 to 100% ay dheer yihiin ragga haddii aad maqsinka gashid aad cambaro la sheekaysanaysid waxba xashashaq way ku maqashay ayadoo madbaxa wax karinaysa oo yararka karbaashaysa oo dhulka fiiqaysa ayay wad ku maqlaysaa waxaad ku hadlaysid dumarka ilaahay wuxuu siiyey sensitivity inay wax maqlaan yani maqalkoodu waa cajiib ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu u sameeyey dhadhanka dumarka ilaahay subxaanahu wa tacaala boqolkiiba 30 ayay ka dhadhan wanaagsan yahay yani cuntada dhadhamisid rag way iska cunaan cuntada maxay dumarku inagu cunto wanaagsan wax walba aan ku dadaalo cunto guriga lagu soo ma samayn karaan gabadhu way inaga dhadhan wanaagsan tahay waayo waxaan leeyahay bad maxay taste buds carabka maarta timaha ku yaala ilaahay dumarka boqolkiiba 30 buu u dheereysay ragga maha caynka dumarku marka hore waa more sensitive mataqaana sensitive waa yani dareenkoodu waa more sensitive sensitivity marka waa laba waa emotional sensitivity iyo physical sensitivity labadu marka dumarku waliba physical sensitivity from 10 to 15% ayay ka dheer yihiin ragga that's why dumarku ay jecel yihiin in la taabto inaad gacanta qabatid ama ayada ku taabanaysa ama ada taabanaya waxa weeye waxa ilaahay ku abuuray yani ma wax iska yeeyayso midba kooniya hanaga durugda xasirtu inta say leegtahay ma yani wax shirkay yani subhanallah arrintu waxa la markay yar yihiin every when almost kolba age kooda marmar baa jirta every 15 minutes waanu ilmu hooyada taabta waa baahiso ilaahay ku abuuray dumarku because they more sensitive jirkoodu ilaahay wuxuu abuuray inay istaabtaan ama la taabto that's why raggu laga yaaba inay ku wasocona inaan mar gacanta aan ku qabanin laakiin dumarku gacanta is qabtaan way is hagareeyaan way is dhunkadaan mar walba is dhunkadaan inaku wa salaamu calaykum xadiga dhunkanaysaa ayadu laakiin way dhunkanaysaa ma ka dhunkanaysaa way ilaahay baa u sameeyay ma wax iska yeelayaan waa waxay jecel yihiin dumarku waxay ka jecel yihiin waxa kale they are more insecure waxay jecel yihiin more social system inay ku noolada meel bulsho ah more than ragga ninku kaliya waa suuqa iska tagaya uu soo noqonaya laakiin gabadhu inay saaxiibadeed la hadasho ay tiraahdo aynu shopping man soo sameynaya ama moolka taas ugu wanaagsan iska daa wax kale
aroosyada ma aragtay daydiku ma isku dhex jirtaan laakiin annaka hadday midi musqusha tagayso labaatama si galbinaya ma sha Allah tabarakallah inay musqusha gabadh kaligeed gasho ma aha waa inay ambar kiciisa aan caasha kiciisa aan heeb laka ayna keena musqusha mid ma u musqusha they are social being ilaahay bas u sameeyay dumarku ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo u sameeyay tani waa cajiib ma ogtihiin gabadhu kaba soo qaad waxa la yiraahdaa average ku ilmaha ku dhali karta waa 14 jir ayay gabadhu ku dhali kartaa ilaa iyo 48 jir taa awadeed ilaahay wuxuu u sameeyay dumarka xidid yaro sanka kaga yaala ugu fiirsada xidid sanka kaga yaala gabadhu xididkaasi markay ninka u dhawaato yani ma ha dhawaasho dhunkasho ama aha wal ciyaadu billah laakiin dhawaasho ay ka arki karto shirkan cajiib u shaqeeya shirku wuxuu siinayaa message maskaxdeeda ayadan dareemaynin inuu ninkani ilmaha dhali doontid u wanaagsan yahay inaan u wanaagsanayn waa cajiib subhanallah way oranaysaa ilmaha way oranaysaa ninka waayo ayadu waxay haysataa limited time waa 14 to 48 waqtigeedu waa muhaddad ilaahay marka qudrad buu siiyay ayadu ku oranaysaa ninkan DNA-diisa iyo sidoo uu abuuran yahay iyo ilmo waan u dhali karaa iyo uma dhali karo gabadh baa arkaysa ninka maxaad ku diiday waa ninka doonaysa dharar iyo qurux iyo caynka maxaad ku diiday ma garanayso qudheedu dookhayga ma habe koranaysa marka ma hado way urisay ma urayo qorme ma ninka ma urayo waxay urinaysa yani waxa la sameeyay subhanallah gaalada waxay sameeyay cajiib waxay keeneen 10 hablood 10kii hablood waxay u geliyeen garan bajaamay uga dhigeen waxay habeen walba garanka ku seexo wiig garanka ma meeydi kartid garankii bay soo celiyeen marka garamadii waxa la geliyay mid walba waxa la geliyay ambuub markii la geliyay inama leeyahay garamadan uriya mid walba garankii buu qaada waa 10 hablood waa 7 cisho mid walba wala ilaalinayay inaanay garanka from this time to this time inaanay bixinin inaanay meeydin inamadii marka line bay soo marayaan garankii baa la ursinaya wuxuu ku leeyahay that's okay iska dhigay mid kale qaadaya wuu uraya koonaya mid kale qaadaya inanka ku xiga kii hore u lahaa waa iska okay wuxuu leeyahay waa qarmoon waayo dhididka ilaahay sidoo noo sameeyay rag iyo dumar waa kala kaan marka gabadhu marka dhalmada marka timaado ninka guursanayso ilaahay wuxuu u sameeyay qudrad ay ku dooran karto qofkan inuu sax u yahay saalix u yahay ilmaheeda iyo in kale rag iyo dumarku waxay kala duwan yihiin kale waxay kala duwan yihiin dumarku waxa walba ma ilaa ma maqasho dumarku wax ma ilowdo ma maqasheen dumarku wax ma ilaawaan raggu laakiin way ilaawaan waayo dumarku memory-gooda iyo memory-ga ragga isma dhigmaan gabadhu wax wal ay aragtaba ma ilaawayso ninku laakiin memory-giisu waa short marka rag iyo dumarku maxay isku khilaafaan marba wax islaada Saciid wuxuu ka hadlayaa arrimahan gurigan ka hadlay waxay isku khilaafaan ninkii bay leedahay waxa seen u baahanay ayadu way xasantay asagii canaad isma leh qalbaan ma qabo laakiin uu ilaawaya ilaahay ugu mutalagalin gabadhu marka sidee marka doonayso qof la noolaato wayna ogaataa qofka nin aan u diraya waxan haduu wax soo ilaawo وإن لفهما إلى إله بس هو أبورين ومان أبورين وإن لفهما قفكن قدرات دي إلهي سي أيام محدودة فكفر بدن باتشرة أو دمرك كأشكال ونيو قبل حد يقول وين هذا شايع وذا مقابل بيوم حلو ونيو هذا قبل يقول مركن قرية قالنا وين هذا لسه مركن سيسة حني وين هذا لسه مركن عنتد السميني أنسى السمين سوى وين هذا لسه ayadoo hadlaysan waan ka soo baxaa guriga war goormay aamusayaan dumarkan buuga gabadhan goormay aamusaysaa waxa jirta gabadhu maalin walba maskaxdeedu waxay generate garaysa ay sameeysa culimadu waxay yiraahdeen 25 ilaa 32 kun oo kalmadood
gabadhu maskaxdeedu waxay generate garaysaa 25,000 ilaa 230,000 oo kalmadood kalmadahaasi markaa waa inay soo baxaan iskuma ciidi karayso ma qasbi karto waa inay soo baxaan gabadha markaa saalixadii markuu ninkeedu yimaado sidii Aisha radhiyallahu xadiiska mazar ay uga sheekaysay dumarkii 12 dumar haay caynkaas oo dhan ay habeen uga sheekaysay yaa rasuulallah gabadh baa timi labaha ay macruuray wadatay timirtiba u kala jeexday yaa rasuulallah gabadh baa timi sida yaa rasuul aynayna tan xorayn maalin walba Aisha nabiga warbay u haysay maalin walba warbay u haysay dumarku waa inay hadlaan ilaahay bas u sameeyay ninku laakiin 12,000 ilaa 15,000 ay maskaxdiisu maalintii abuurta يعني ناتشر لوغا سو بخا و فيرسو 12,000 يا 25,000 امساش ديري marka امساش ديري كم سما يعني marka adug mara guriga timaadid gabadhaadi marka xasanku marka hayla hadin anigu mashquul baan u maantay soo shaqeynay waan daalana waayo adigu 12,000 wax ku soo shaqeysay dad bad soo kala heshiisay wax looga baahan asxaabta kala soo hadashay adigoo waxba ku jirin ma iimaanaysa guriga ayadana 25,000 kula sugayso kalmadood ilaahay kala ma hayseen 25,000 iyo kula sugayso yee ku akhrida marka dad adigu wax dhageysan weydi soo ciidi ku akhrid doonto maaha taas wara dumarku hadalkeen xant way ku badanta dumarka way hadalkiiba qasbaya qasb wayna hadasha marka wax subject oo naafica marka dhamayso oo diinteeda iyo aakhiradeeda ka dhamayso waa inay day wax meel yar soo taataabata waa inay soo xamata tan soo maagta dumarka maxay kala duwan yihiin dumarku u fiirso waxaan raday stress ma taqaana situation sheekadu markay waqtigu qaraarado xumaado ragga iyo dumarku kala duwan yihiin gabadhu sanadkii oo dhan way fiicantay caruurta kala dabaraysa aday xitaa wax ku sheegaysa way ku talinaysa adigu waad soo gashay waad dadka ma gashay laakiin haddii meeshii timaado mushkiladii gabadhu maskaxdeedu way sida ragga uma shaqayso haddii gabadhu stress ay tahay ay aad u warwarsan tahay maskaxdeedu effective maaha بخلاف الرجل this is not what a Muslim Somali Muslim kuma oran gaarada waxaan yiri xitaa gaarada waxaan soo wada qoray that's why gabadhu 5 to 10% to 30% at the time of stress waxa ma qaban karto depression ku dhici kara way isku wareeray way isku buuqi kartaa way isla hadli kartaa ninkuna waqtiga stresska ay timaado ayay maskaxdiisa soo shaqaysaa marka hadda sheekadu ay waalato ayay ninka maskaxdiisa soo hanbaabarta ay shaqaysaa waqtiga dagaalka ninku waa fariid marka garta waa fariid marka la islaayo waa fariid marka dilma timaado waa fariid marka shaqadu waa fariid يعني مسكحس way shaqeynaysaa 5 to 30% ayay ka faas badan ka degdeg badan tahay dumarka gabadhu bikhilaaf dumarka markay stress timaado it hits them hard